dalka Itoobiya 24 saac ee ugu dambeeyay waxaa ka dhacay dhulgariiro 10 gaadhaya gaar ahaan dhulka ku gadaaman dooxada Hawaash amaba Rift Valley. Magaalada Hawaash ee deegaanka Cafarta meel ku dhow Isniintii oo kaliya waxaa ka dhacay 5 dhulgariir oo isxigay. Mataarana 3 deegaanka Ambosana 2 dhulgariir. Haddaba maxaa ka jira wararka sheegaya inay bad ka dilaaci karto bartamaha geeska Afrika? khubarada ku takhasusay qaab dhismeedka iyo dabeecadaha dhulka iyo kheyraadkiisa ee afka qaar loo yaqaan geology waxay markaasi saadaaliyeen dooxada Rift ama Rift Valley afka qaar loo yaqaan inay bad ka dilaaci karto baddaasi oo wadamada geeska Afrika ku yaala Afrika inteeda kale ka jarayso jasiirad hor leen abuurayso Afrikana loo kala bixin doono waa sida markaas khubarada sheegayaan Nubian Plate oo markaasi dhulka ugu weyn ee Afrika uu noqonayo jasiirada Afrika ka go'dayna loo bixin doono Somali Plate iyagoo markaasi u sababeeyay volkaanaha sida isdabajooga markaa uga qarxa dooxada Rift oo marta Eritrea, Djibouti, Ethiopia, Kenya, Uganda, Tanzania, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ilaa iyo Burundi.